السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين صاحبي الدمانتينا ميل كستواد جوكتان كسو دواد عشر كنا أرضي يفتينك أنا برناو أخرسكي أخونتا أنو قادنو أرضي يفتينك أنا برناو أخرسكي أخونتا أنو قادنو waxaan qaadanaynaa the present perfect tense la yiraahdo oo kamid ah 12 tense. Use isticmaal the present perfect tense to talk about si aad maaragtay uga hadasho happenings dhacdooyin in the past oo ahaa xilli la soo dhaafay that explain or affect kuwaas oo tilmaamayo ama saameynayo the present waxyaabaha hadda taagan. The verbs ficilada have and has are used ayaa la isticmaala as helping or auxiliary verbs caawiyaal ahaan ama ficil caawiyaal ahaan to form si loo sameeyo the present perfect tense ka. Example tusaale waxaa ka mid ah Sam has scored wuxuu dhaliyay 2 goals 2 gool ayuu dhaliyay. I've just finished hadda ayaan dhameeyay my showerkeyga ama qabayskeyga. Uncle Tom has lost wuxuu dhumiyay his wallet boorsadiisa lacagta. John has gone out banaanka ayuu aaday. The Lees have moved to Ohio. Lees waxay aadeen amaba se xayawaanaad dadka maaragtay as animals waaye waxay u guureen ama aadeen Ohio. It has not rained for months. Bilooyin roob ma de'in. Have you found your keys yet? Furayaashaadi weli ma helin miya ama ma heshay weli. Tim has made 2 spelling mistakes. Tim wuxuu sameeyay 2 qalad oo dhanka hingaada. They have opened a new shop. Waxay fureen dukaan cusub. It has been very wet today. Maanta kuleel badan qabow badan ama qoyaan badan ayaa jiray. Kim's cut her finger. Kim waxay iska jartay farteeda. Meeshan s apostrophe iyo esta waxay muujinayaan hasay muujinayaan. Waa hagaag. To form the present perfect tense si loo sameeyo present perfect tense join isugu biiri have or has to the past participle of the verb. Yani past participle ka have ama has ka soo hormari. For example, and have plus past participle iyo has plus past participle. The past participle of a regular verb. Past participle ka ficilka caadiga usually badanaa ends in wuxuu ku dhamaaday ed ayuu ku dhamaaday just like si lamid ah the simple past tense simple past oo kale. But laakiin the past participle of regular verbs ficiladan caadiga ahayn do not follow this rule. Sharcigaani ma raacaan. macnaha waxa laga wadaa halka ficilada qaarkood ed kaliya ay qaataan. tusaale wanted. laakiin markii la hod tusaale ahaan eat pastiga wuxuu noqonayaa ate and bbgina wuxuu noqonayaa eaten. marka saddexdaasi way kala duwan yihiin. presentiga qaab uu qoran yahay, pastigana qaab uu qoran yahay, bbga ama past participle-kana qaab uu qoran yahay. haddii saddexdu ay kala duwan yihiin waxaa loo yaqaanaa regular verbs. haddii laba isku mid ay yihiin presentiga uu ka duwan yahay waxaa la lahaa regular verbs. waa hagaag. halka waxaa ku qoran exercise 1. Write the past participle of these verbs on the blanks. meesha banaan ku qor past participle-ka ficiladan. dabcan waxaan isku naqaanaa inaan hal xabo ama kan koobaad kaaga shaqeeyo, kan labaadna adigu aad ka soo shaqeyso. eeg marka halkan break ayaa ku qoran halkaani. jabin waaye broken laga rabaa bbgiisa. marka dabcan inaad qori karto ayaan rajeynayaa haddii hadda aan screenka aan ku qori waayo. kan drink bbga waa drank meesha ayada u noqonayso. cut jarid waaye sidiisu kusoo noqona kan. do sameyn waaye dan ayaa laga rabaa ne ayaa ku daraysaa. sing waa heesid sang ayaa laga rabaa meesha ayada u ay noqonaysaa. pie waa pot waa bou maaragtay ht waa
GHT waaye. Find waa found, halka ayada way tuurmaysaa waxay noqonaysaa OU. Draw waxay noqonaysaa drown, n ayaa ku darmayso. Hair waa head. Know waa known, n ayaa lagu darayaa. Wahagaag waxaan rajaynayaa af Soomaaligooda inuu ku fududaan doono kuwaasi. Aan imaano exercise 2. Exercise 2 waxaa ku qoran fill in the blanks, ku buuxi meelaha bannaan with the present perfect tense of the verbs in parentheses. Verbka ku jira bracketka isagoo present perfect tense halkaa ku buuxi. Sidoo kale waa inaad ku dartaa auxiliary verbka uu qaadan karo hadduu has u baahan yahay iyo hadduu have u baahan yahay. Si fudud, haddii subjectiga uu yahay singular waxaa siinaysaa has, hadduu plural yahay waxaa siinaysaa have. Tusaale waxaan ka wadaa haddii hal magac yahay hasi, hadday magacyadu ay badan yihiin havesi. Ama haddii she, he iyo it yahay hasi, haddii I, we, you, they uu yahayna havesi. Verbkana waxaa ka dhigtaa bb. Dad aabe wuxuu iska dhumiyey his car key furihii gaarigiisa. Marka lose waaye, passiga waxaa laga rabaa, bb waxaa laga rabaa lost. Waa hagaag. All the guests dhammaan martida marka maxaan leenahay meeshan have arrived way soo galeen. Have baan siinayna, arrived aan ku darayna. Halkaana has ayuu qaadanay. Dad has lost his car keys. Waxaan rajaynayaa kuwa soo socdo inaad ka shaqeyn doonto. Oo dabcan ma adka sidaan rajaynayo. Tony wuxuu dhaliyey goal ayuu dhaliyey. Better maaragtay waxay seexatay in the tendada several times marar badan oo kala duwan. Halka waxaan leenahay markaani roob muusan di'in for 2 months, 2 bilood roob muusan di'in aan leenahay. Some prisoners, qaar ka mid ah maxaabiista waxay ka baxsadeen from the prison, xabsiga ayay ka baxsadeen. The plane diyaaradda waxay degtay ama waxay ku degtay at the airportka. John wuxuu sameeyey markaasi a puppet, boombala soconaya ayuu sameeyey. Dad and I aniga aabe waxaan soo qabanay a big fish, kalluun weyn ayaan soo qabanay. Number 10 wuxuu leeyahay I waxaan arkay this movie-gani ama filmkani ama muuqaalkani twice, 2 mar ayaan arkay ayuu leeyahay. kaliya waxa u baahan tahay inaad verbka bb ka dhigto, has iyo have wuxuu u baahan yahay ka hormariso. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. intaan kulmi doono casharka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano. ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano.